qaybta waxaan ku baranaynaa markaasi wax lagu magacaabo maadaama waxaan ku jirnaa weli conditionskii ayaan ku dhex jirnaa waxaan arkaynaa markaasi qaabka loo isticmaalo switch statementiga qaabka markaas loo adeegsado ayaan arkaynaa. Okay, haddii aan iska tirno intaanba switch statementsi markaas oo adeegsan waxaan sameynaa variable kan waxaa leeyahay markaas a ayaa leeyahay a is equal to okay number ayaa siiyey switch ayaa meeshaas keenaya switch markaa dhahdid haddii aad isticmaalayso extension kan oo image-ka ama VS Code-kan si automatic markaasi ayuu kugu dhamaystiray switch-ka oo diyaarsan balse aan isku dayna anaga inaan qorno markaas switch markaa dhahno qaybtan waxaan ku sheegaynaa condition-kii waxaan sheegaynaa markaasi variable-ka ay sheegaynaa oo ahay a ayaa meeshaas ku sheegaynaa waxaa leeyahay markaasi if case-kan sheegay case-kan meesha if ka dhigilad ay case adeegsanaysaa case-ka haddii markaasi uu yahay 1 hadduu yahay waxaa noo soo bandhigtaa ayaa leeyahay 1 si fiican u fiirisid waxaan dhahnaa markaasi wax anaga oo ku sameyn compare ku sameynayna waa eedaas ayaan ku sameynaynaa haddii markaas eedan ee la mid noqoto hal haddii ay la mid tahay waxaa la soo bandhigayaa markaasi tan ayaa la soo bandhigayaa ka markaad soo bandhigtid waxaa qasbanta inaad break waa joojinaysaa haddii kaleeto code-ka serial galesma oo kan kaleeto ay loo sii gudbayaa haddii condition-kan true noqdo ayaa ka la soo bandhigayaa programkan meesha ayaa lagu joojinayaa okay tanna sidaas la mid haddana waxaan sameynaa markaasi case-ka xiga ayaa waxaa leeyahay haddii markaasi 2 uu yahay markaas haddii markaasi 2 la eg tahay idan maxaa la soo bandhigayaa okay waxaa soo bandhigaysaa waxa lagu magacaabo 2 ayaa leedahay kadibna break ayaa meesha ku jooji idan meesha ayaan ku joojinaynaa waxaa kaloo leenahay markaasi case-ka waa sii wadi karnaa case-ka hadduu 3 yahay balse muhiimadu waxay tahay haddii conditionskan dhammaan ay false noqdaan maxaa la soo bandhigayaa ugu dambeyn waxaa default ka dhigaynaa markaas anaga waxaa adeegsanaa default wax lagu magacaabo default-kan waxaa leenahay okay ka xira dib isaga celiyo okay default-ka asagana maxaa leeyahay default waxaa leeyahay markaas waxaa noo soo bandhigtaa okay not found ayaa noo soo bandhigaysaa kadibna break ayaa leenahay okay save aan joojinaynaa okay meesha hadda markaa fiirisid maxaa noo soo baxanaga waxaa noo soo baxsa aragtaanba 2 ayaa noo soo baxay sababtoo ah waxaan a ayaa ku sameynaynay barbardhig oo waxa la barbardhigaynay caseskan marna 1 inuu la mid yahay a marna 2 inuu la mid yahay ama haddii false dhammaan ay noqdaanba in la soo bandhigo qaybtan hoose xigta markaasi in la soo bandhigo a is equal to okay a waxaan 2 ay la mid tahay a ma la mid tahay 1 haddii run tahay kan soo bandhig a ma la mid tahay 2 haddii run tahay kan soo bandhig hadda waa sax a markaas waxay la mid tahay 2 ay la mid tahay qaabka 2 loo soo bandhigay haddii 1 aad meesha maxaa soo baxay si fiican u fiiri qaybtan safe markaa dhaho waxaa soo baxay 1 condition-ka kan ayaa true noqday haddii markaas number kale aan dhahana safe aan dhaho waxay soo baxay markaasi midka hoose haddii 1 iyo 2 uusan noqonin waxaa la soo bandhigayaa kan xiga default ayaa la soo bandhigayaa switch-kan aad ay muhiim u tahay marka badanaan waxay ka caawinaysaa marka waxyaabo badan oo if badan oo sameey lahayd logic badan oo qori lahayd ayaa markaas switch-kan ka caawinaysaa qaybtan inta ayaa ku joojinaya fadlan hadduu markaan video-gan ku caawiyay like share comment subscribe inta samee saaxiibkaaga ama walaalkan la wadaag